السلام عليكم maanta waxaan doonayaa inaan sharaxo filim aan caadi ahayn oo lagu magacaabo Inuyashiki ee daawo oo taxadarna Ishiro wuxuu ka shaqeynayay shaqo uu ka soo dhacsado nolol maalmeedka qoyskiisa laakiin guriga markuu ku soo laabto kama heleenin deganaan iyo naxariis toona dadaalka uu u marayay si uu farxad geliyo waxa loogu bedelayay eedeyn joogto ah dhan walba waxa uga iimaanaysay cabasho aan dhammaad lahayn sidaasoo ay tahay Ishiro qoyskiisa wuxuu uga iibiyay guri cusub xaafad ka wanaagsan midda ay inantiisa Mari iyo wiilkiisa Takeshi waxay ku qaldamayeen guri ku dhagan midka ay soo degirabeen waxay moodeen inuu kooda cusub yahay waxay isku dayayeen inay galaan xiligii hooyadooda ay ku wargelinaysay in midka yar ay ku dhagan inuu yahay gurigooda cusub Ishiro midaas waxay ahayd wixii ugu wanaagsanaa ee uu awooday inuu u sameeyo qoyskiisa waayo in muddo ah wuxuu u soo aruurinayay lacagta uu ka bixiyo gurigan laakiin ilmihiisa maynan arkeenin dadaalka aabahooda waxayna isla caburinayeen carro darteeda Ishiro wuxuu isku dayay xaaladooda inuu dejiyo sidaa darteed wuxuu u sheegay inuu u soo iibiyo caawa cunada ay jeclaayeen laakiin cidna kama mahadineenin niyad qaboojintiisa waxayna iska indhatirayeen kalgacaylka aabahooda taa bedelkeeda banaanka ay uga baxeen waxayna ku cidleeyeen goobta cashada isaga oo niyad jabsan ayuu kaligiisa iska cunayay raashinka maalin maalmaha ka mid ah Ishiro wuxuu ku soo daahay shaqada wuxuu ku soo wajahnaa guriga markii uu wadada kula soo kulmayay koox tuuga ah oo nin lacag ka xoogeysay wuxuu ku fikirayay inuu ninka caawiyo laakiin naftiisa ayuu u cabsaday waayo way tiro badnaayeen tuugta markii uu soo jeestay isla markii wuxuu arkay Mary iyadoo awniya jabsan ayaa waxay ku dhahaysay waxa tahay fulay aan waxba caawin karin ka hor intaynan ka dhaqaaqin markii uu guriga imaaday Ishiro banaanka ayuu iska fadhiistay wuxuuna ka fikirayay nolosha iyo sida ay wax yeeshay waxa dhankiisa u soo socday kaasoo u muuqday inuu lunsan yahay oo waraaq suran tahay qoortiisa waxaana ku qorneed magaca eyga oo ahaa Haneko ee fadlan xanaanay kadib xayawaankii ayuu u naxariistay laakiin xaaskiisa oo albaabka soo istaagtay waxay ka codsanaysay inuu iska fogeeyo xayawaanka waxayna u dhiibaysay waraaqadiisa caafimaad ee isbitaalka uga timid midaasoo lagu ogeysiinayay in baaritaan kale uu u dhiman yahay maalinta xigtay Ishiro wuxuu aaday isbitaalka wuxuuna ogaaday inuu qabo kansarka heerka 3 kaasoo ku sii faafayay jirkiisa waxayna noqotay mid aan waxba laga qaban karin waxaa loo sheegay in noloshiisa ay ka harsan tahay dhowr bilood kadib warka weyn uu helay wuxuu isdhahay qoyskaaga wadaag arintan laakiin warka intuu u sheegin ayay talka ku damisay xaaskiisa ilmihiisa iyagana kama qabanaynin taleefanka kadib Ishiro oo isciilayo ayaa wuxuu aaday banaanka wuxuuna iska sii watay eeygiisa wuxuuna ku fikirayay familkiisa inaynan ka murugoon doonin haddii xitaa ay maqlaan cudurka ku dhacay wadnihiisa oo aad u garaacmayay ayuu wadada dhankeeda uga tagay eeyga wuxuuna ku cararay meel baakin ah laakiin waxa uu la yaabay xayawaankii oo soo daba kacay oo ka harin Ishiro raaligelin ayuu siiyay wuxuuna dareemay inuu yahay midka kaliya ee dhibkiisa Ishiro wuu ooyay isagoo raali gelinaya eeyga dhowr ilbiriqsi kadib waxa uu arkay nin kale oo ku fadhiyo kursiga beerta ee hortiisa ka muuqday si lama filaan ah iftiin dhalaalaya ayaa cirka ka soo muuqanayay midkaasoo si tartiib ah u sii weynaanayay kadibna wuxuu ku soo habsaday Ishiro iyo ninkii ag joogay taasoo sababtay suuxdin degdeg ah inay meesha ka dhacday maalintii xigtay si kastaba ha ahaatee Ishiro waxa uu ka soo toosayaa beerta isla halkii uu shalay joogay Haneko ayaa ag fadhiyay waxa uu soo qaadanayaa ookiyaalkiisa laakiin marka uu gashto wuxuu ogaanayaa in xitaa si cad uu wax u arki karo ookiyaalka la'aantiisa Ishiro arintaasi asoo la yaaban ayuu xaafadda dhankeeda iska aaday marka uu qolkiisa ku jiray hal mar gacantiisa wuxuu isku bedeshay hub isla markii uu naxay isagoo argagax dartii la weeraray wajigiisa waxa uu sameynayay kalago u ekaanayay nidaam koronto oo sameysmaya oo kale oo madaxiisa ku dhex sugan jirkiisa midba midka ku xiga wuxuu isku bedelayay mashiin waxa soo baxday xalay wixii ku soo dhacay inay arintani keentay oo waxay ka soo saareen mashiin leh shucuur bini'aadan wuxuuna helay awood ka sareysa bini'aadanka iyo mid la mid ah mashiinada ugu khatarta badan dunida ninkii shalay ee biriqda kula soo dhacday ee baakinka la fadhiyay waxa lagu magacaabayay Hiro isna awood kale ayuu helay wuxuuna aaday guriga saaxiibkiisa Naoki lagu magacaabo wuxuu tilmaamtay gacantiisa ku sii dilay shimbir kadib wuxuu keenay Naoki baakinka gawaarida wuxuu doonayay inuu u muujiyo awoodiisa la yaabka leh wuxuuna soo bandhigayay inuu maskaxdiisa ku dhaqaajin karo gawaarida Naoki arintaas wuu ka naxay wuuna la yaabay awoodda Hiro uu helay wuxuuna dareemay inuu riyo ku jiro oo kale dhanka kale Ishiro wali waxa uu ku dhiban yahay la qabsiga maalintiisa marka uu gurigiisa ku sii socday wuxuu arkay qooley dhaawac ah oo wadada dhinaceeda taalay markii uu u aaday si uu u soo qaado gacmihiisu waxay bogsiiyeen shimbirtii wayna duushay isla markaas awoodda maqalkiisa oo korortay waxay sababtay inuu maqlay hooyo ka bariyaysa dhakhtarka inuu wiilkeeda u badbaadiyo wuxuuna raacay codka dhanka uu ka soo baxayay wuxuuna helay ilmo buka oo sariirta isbitaalka saaran marka uu taabtay wajigiisa ilmuhu wuxuu bilaabay inuu bogsado sidii xamaam
filimkii oo kale. Ishiro ayaa si farxad ay ku dheehantahay ilmaha ugu sheegay inuu bogsaday, wuxuuna ku soo laabanayay guriga isagoo faraxsan. Maalintii xigtay, Naoki waxay isku dhignaayeen ardayda fasalka qaar ka mid ah. Hiro ayaa u soo dhaxgalay si uu u kala celiyo, laakiin wuxuu isku dayay in mid ka mid ah dadka isdagaalayay Naoki inuu dilo. Naoki arrintaasi uu ka horjoogsaday, wuxuuna arkay in awoodda ay Hiro ka dhigtay rabshad abuure. midaasna waxay ahayd wixii cabsida badan uu ku dareemay. Shion waa gabadha dhigato fasalka Hiro, waxayna ku daqraneed isaga. Maalintaasi waxay u soo bandhigatay jaceylka ay u heeso. Arrintaas la yaab ayay ku noqotay Hiro. Intaa kadib waxaana la barayaa hooyada Hiro waa kabalyeeriyad maqaayad ka shaqeyso. Aabihiisa sidoo kale waa nin taajir ah oo hooyadii uga tegay naag kale darteeda. Hiro ma jecla aabihiisa, laakiin mar walba wuxuu la aadaa casho, wuxuuna la soo qaataa waqti si uu ula kulmo isaga iyo qoyskiisa kale. Hiro walaalihiisa had iyo jeer aad ayay u soo dhaweeyaan, waxayna u qabaan jacayl baaxad weyn leh. Si farxad ay ku dheehan tahay ayay waqtiga ula qaataan, laakiin isaga weligiisa dib uguma celin jacayl. Isaga wuxuu ka fikiraya wax ku saabsan hooyadiisa saboolka ah. Waxay ku dhaweyd saqda dhexe markii Hiro uu dib ugu soo noqonayo guriga. Waxa uu maqlay farxadda ka muuqatay qoyska aabihiisa, waxayna taas xasuusinaysay nolosha cusub ee aabihiisa uu galay. Wuxuuna ka qaaday carro midaas, wuxuuna u soo galay qoyska oo fadhiga ku faashaalaya, wuxuuna dilayaa qoyska oo dhan, wuxuuna u adeegsanaya awoodiisa argoosi. Dhanka kale, Ishiro wuxuu awoodiisa ku bogsiinaya caruur badan oo isbitaalka ku jirta. Dilka qoyska waxa aad iyo aad u hadal haysa saxaafadda maalintii xigtay oo dhan. Naoki waxa uu ka baqayaa in saaxiibkiisa uu ka dambeeyay falka, maadaama goobtii aan laga soo helin wax xabada ah. Markay kulmeen, Hiro waxa uu siinayaa lacag si uu u aamuso. Wiilasha arrintaasi ayay isku khilaafayaan. Naoki ma rumaysan karo sida ay ugu fududahay Hiro inuu dilo dad badan oo waxba galabsan, wuxuuna u sheegayaa inuu doonayn inuu saaxiib la sii ahaado. Hiro aad buu uga xumaanaya arrintaas, wuxuuna ku soo noqday gurigiisa. Wuxuu arkay hooyadiisa oo la ildaran xanuun, waxayna u sheegaysay in xanuunka kansarka laga helay. Wuxuuna bilaabay inuu laabteeda ku ooyo, wuxuuna u ballan qaaday inuu u ogolaan doonin inay dhimato. dhanka kale guriga Ishiro wiilkiisa waxa la qabtay isagoo lacag ka xadaayay boorsada hooyadiisa. Mary waxay sheegtay inaynan doonayn inay aado jaamacadda. Reerka wuxuu galay foodo, sidaa darteeda Ishiro waxa uu ka dhawaajiyay in wax walba isaga uu xalin doono. Inantiisa caasiyada ah ayaa ku qaslaysay nacasnimada aabaheeda. Mary waxay u sheegtay in Takeshi lagu caayo dugsiga oo haddii wax uu tari karo dadkaas ka celiyo wiilkiisa. Waxay doonaysay inay aabaheeda dareensiiso xanuun ka daran midka iyada ay qabtay, kaasoo si hufan u dhaawaca laabtiisa. habeenkaas Ishiro wuxuu kaligiisa ku ooynayaa qolkiisa. isla markiiba wuxuu maqlay Naoki oo ku duceysanaya in Ilaahay ka qabto saaxiibkiisa dadkan uu dilaayo. Ishiro uu fahmay inuu Hiro ka hadlayo, wuxuuna u duulay xaqiisa. Naoki wuxuu u soo bandhigayaa Ishiro inuu tababaro si ay uga horjoogsadaan Hiro dhacdooyinka uu fulinayo. Dhanka kale, Hiro hooyadiisa wuxuu ka caawiyay inay bogsato, wuxuuna ka soo hubiyay dhakhtarka in xanuunka uu ku dambeeyay iyo in kale. Banaanka ayay u soo baxeen, hooyadiisana way caafimaadeen. Hiro wuxuu ka codsanayay hooyadiisa inay fasax iska aado, laakiin isla markiiba dhinaciisa waxaa ka soo muuqda booliis kuwaasoo dabagal ku hayay. Hiro waxay ka codsanayaan inuu si degan saldhigga ugu raaco, laakiin wuxuu isku dayayaa inuu baxsado. Waxaana qasab noqonayso in awoodiisa banaanka ay timaado, waayo wuxuu dilay 3 ka mid ah askartii bursanaysay. Waxaana caddaatay dilaaga la tuhmaya inuu isaga yahay. magaalada oo dhan waxay hadal heysay warkiisa, mana haysan meel uu ku dhunto. Nasiib wanaag, qoftii jecleed ee iskuulka ay wada dhiganayeen ayaa garab ku siisay inuu ku dhunto gurigeeda, waxayna u sheegaysay inay wax dad ah ee dunidani u joogin, waxa kaliya ee ka fiirsanaysana uu yahay isaga. Dhanka kale, Ishiro wuxuu ku guuleystay tababarkiisa, waxa uu dareemay daal badan. Dadaal dheer kadib wuxuuna soo qaatay biyo caafi u eg, laakiin markii uu cabay wuxuu ku dareemay xanuun. Gacantiisana halkii xabadda ay sii deyn lahayd biyo ayaa ka soo baxay. Hiro TV-ga habeenkii wuxuu ka arkayaa hooyadiisa oo la wareysanayay, iyadoo dadka ay ku eedeynayeen falka wiilkeeda. Waxayna bixinaysay raaligelin badan, laakiin qofna uma muujinaynin naxariis. Wuxuuna dareemayaa in hooyadiisa ay dhibaato u marayso dartiis. Saxaafadda ayaa soo warisay waqti yar kadib in hooyadiisa laga helay qolkeeda, waxayna isku dishay cadaadiska badnaa ee dhanka bulshada kaga imaanaya. Hiro qadka wuxuu ku arkay kommentiyo badan oo dadka ay ugu habaarayeen hooyadiisa, wuxuuna bilaabay inuu hakingareeyo qof walba oo commenti dhiibtay taleefankiisa. Wuxuuna ka dhex toogtay shaashada taleefanadooda. Dalka oo dhan ayuu gariiriyay.
habeenkii Shion waxay arkaysaa Hiro oo murugaysan waxayna isku dayaysaa inay dejiso laakiin horteeda ayuu wuxuu ka qiirinayay inuu yahay kii ka dambeeyay dil walba oo ka dhacay magaalada. Shion waxay jikada ka dooninaysaa biyo markii ay dhinaceeda ka arkaysay askar taagan. Hiro ayaa soo kacay kadib markii xabado ku soo fureen wuxuuna isku duubay saaxiibtiisa wuxuuna baabi'iyay askartii oo dhan laakiin gabadhii saaxiibtiisa ahayd ayaa ku dhimatay rasaastii ee isweydaarsadeen ciidanka isaga taasoo sii horisay cadaawadii uu u qabay inuu dadka laayo wuxuuna go'aansaday inuu dilo qof walba oo waddanka ku nool. Hiro muuqaalkiisa ayuu ku baahiyay shaashad walba wuxuuna u ballan qaaday qof walba inuu dili doono. Dhammaan dadka way ku qaslayeen bootadiisa ilaa ay ka arkeen dadkii oo mid mid dhulka loo jiifinayo markaasay waxay bilaabeen inay kala ordaan. Hiro kaliya kuma ekeen dilista dadka sidoo kale wuxuu burburinayay dhismayaasha goobaha ganacsiga iyo xarumaha dowladda dhammaantooda wuu holciyay laakiin kadib Ishiro oo raadiyay ayay isheleen wuxuuna ka dalbanayaa in tacdiyada uu joojiyo laakiin waxaa dhexdooda ka qarxay dagaal waxayna bilaabeen inay hawada ku dagaalamaan. Ugu dambeyn waxay isla soo gaareen dabaqan korkiisa. Ishiro weli wuxuu ka codsanayaa in xaaladda uu qaboojiyo Hiro ayaa si jees u cabaayay biyaha kadib cirka ayay u wada baxeen. Hiro wuxuu doonayay inuu u dhameeyo Ishiro laakiin qorigiisa gacanta biyo ayaa ka soo baxay kadib Hiro uu awood beelay gadaal ayuu u soo dhacayay. Ishiro gacmihiisa hubka ayuu gantaalo kala soo baxay wuxuuna ku riday gantaaladii wuxuuna qarxiyay Hiro. Ishiro hoos ayuu u soo degay dabaqan ayuu soo koray oo gabadhiisa ay ku dhibaatoonaysa wuxuuna badbaadinayaa xilligii ugu dambeeyay. Kadib Hiro ayaa soo muuqanaya oo gantaaladii ka soo badbaaday wuxuuna feer culus ku dhuftay Ishiro wuxuuna isku dayaa inuu dilo gabadha laakiin odaga ayaa ka badbaadiyay waxaana dhex maray dagaal culus. Hiro wuu ka adkaaday odaga wuxuuna ceeji ku qabtay gabadhiisa wuxuuna ka soo daayay dabaqan. Ishiro ayaa isagoo cariisan isticmaalay awoodiisa oo dhan wuxuuna ku dhuftay feer oo ku jaray laabtiisa sidaas ayuu ku dhintay Hiro. Ishiro wuxuu ka soo duulay dabaqa wuxuuna qabtay gabadhiisa intaynan dhulka gaarin.